إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إلهي قوم ما بدله إلا أي إيغو إسبدلان. دجانج إسبدلك قفكو سيدو إسبدل أولا إيمان كرا إسبدل ميينو أباهنهاي هدي لوايو إسبدلك what kind of life بينو كونو لان كرناها. موضوعنا مانتا وإسبدلك وحانا إذن لسعود سينا يا أنيغو أو بشار إبراهيم aan kaaga qisoodo wax yar habnololeedka gorgorka. Gorgorku waxa uu noolaadaa 70 sano marka ay da'diisu gaadho 40 sano waxa ku dhacay nafkiisa dheer wax ku qabsan jiray uu soo laamo cidihiisuna ay gabowaan oo waxba ay qabsan kari waayaan. waxa kale oo ku dhacda in baalashiisu ay gabowaan oo ay cuslaadaan laabtana kaga dhagaan duulistuna ay ku adkaato. arintani gorgorku laba daran dhexdood bay dooransiisaa. waa marka hore inuu isdhiibo oo uu iska dhinto iyo inuu isbedel sameeyo kaas oo xanuun fara badan qaadsiinaya muddo dhan 150 maalmood. gorgorka doorta inuu isbedel sameeyo una adkaysto xanuunkiisa waxa uu u baxaa buur dusheed kadibna waxa uu bilaabaa inuu afkiisa qalocsamay dhagaxa ku garaaco si uu u jabiyo. marka uu afkiisa jabiyana wuu sugaa ilaa inta af kale u soo baxayo. afkii uu sugayay markuu soo baxa kadib ayuu haddana bilaabaa inuu cidiyihiisa dhagaxa ku garaaco ilaa ay ka jajabaan dhammaantood. haddana waxa uu sugaa inta ay cidiyo kale u soo baxayaan. kadib buu haddana bilaabaa inuu rifo baalashiisa gaboobay haddana uu sugaa ilaa inta ay baalal cusub u soo baxayaan. intaa kadib ayuu waxa uu u duulaa isaga oo aad moodo inuu dib u dhashay waxa uuna sii noolaadaa 30 sano oo kale. halka gorgorkii kale ee isdhiibay uu doortay dariiqa guuldarada iyo dhimashada sidaa ayuuna taariikhda kaga tirtirmay. samaynta isbeddelku waa mid ka mid ah qawaaniinta guusha waana sunno kawni ah oo ilaahay noloshu inoogu jideeyey. isbeddelku waxa uu ka yimaadaa marka qofku ku sugan yahay xaalad aanu raali ka ahayn, xaalad akhlaaqeed oo aanad raali ka ahayn, xaalad dhaqaale oo aanad raali ka ahayn, xaalad siyaasadeed oo aanad raali ka ahayn. marka dareenkaasi jiro waxaa meesha ka muuqda inaad u baahan tahay isbeddel. dadku intooda badan way ka baqaan isbeddelka taasina waa tan sababta inay la noolaadaan murugo joogto ah. waqtigu wuu socdaa dadkuna way jecel yihiin guusha, way jecel yihiin inay maqlaan qisooyinka guuleed, way jecel yihiin dadka guusha gaara inay arkaan ama ay la kulmaan, laakiin ma doonayaan inay la yimaadaan isbeddel joogto ah si ay u helaan koriimo joogto ah. qorax soo bax walba waxaa waajib ah inaynu dhaweyso meesha aynu rabno ilaa in waxaynu u dhowaanaynaa gabow, dhimasho iyo the end of our lives. kaliya waxaad u baahan tahay geesinimo iyo inaadan ka cabsan isbeddelka si aad isu beddesho. xikmad baa ahayd doontu marka ay xeebtu ku sugan tahay waa aamin laakiin sidaa looma samayn. waxaa loo sameeyey inay dhex mushaxdo hirarka waaweyn gudaha fog ee badweynta cabsida badan. aadanuhu waxa uu la mid yahay sidaa looma samayn inuu gacmaha isi saarto, in uusan waxba qaban iyo in uu baqaba. isku qalabee geesinimo iyo dhiiranaan kadibna fooda geli hirarka nolosha ay aad ka baqanayso.